waa maalin ay ku suntanaan doonaan guddiga maxkamadda sare ee Soomaaliya. Bulshada Soomaaliyeed maadaama cabashadiinii la ajiibay waa inaad soo dhaweydaan ood ku soo dhaweydaan yacni ama ha noqdo bannaanbax ama hadal wanaagsan ha noqdo inaad ku soo dhaweydaan. waxaan leenahay maanta waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan taariikh u ah. waa maalin rajo soo celin ah oo Soomaaliya oo dhan rajadeedii ay kor u kacday. waa maalin ay ku suntanaan doonaan guddiga maxkamadda sare ee Soomaaliya. waa maalin u soo hoyatay Soomaaliya oo dhan laguna dhowray cadaaladii iyo dowladnimada Soomaaliya sharafteediina ay kor ugu kacday weeye. ururka Tawfiiq runtii go-aanka maxkamadda waa soo dhaweynayaa. awal hore yayna ahayd bahabraacyadii iyo mabaadi'dii dastuurka doorashooyinka qaranka in ciddii doorasho dhacda cabasho ka qabtaa cabashadooda ay u gudbiyaan maxkamadda sare. mar walbana ka urur ahaan waxaan ku dadaalaynaa annagu sistamka oggolaanshaha uu noo oggolaanayo inaan raacno oo asaga aan ku gaarno wixii guulahan gaarayna. wixii kaleeto dadban oo aan maalanba yacni waafaqsanayna aan iska ilaalino oo aan iska xirno. waa markaa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay in aan cabashadeenni gudbinay aan ka cabanaynay guddiga doorashooyinka natiijadii uu ka soo gudbiyey doorashadii isku sidkaneed ee Galmudug. cabashadeennana aan u gudbinay maxkamadda sare maantana ay ahayd jawaabtii dacwadii la gudbiyey. dacwadaas marka waa ku faraxsannahay ijaabadeeda. guddigana waa uga mahad celinaynaa dulqaadka iyo cadaaladda ay muujiyeen. Soomaaliya oo dhan arrin u soo hoyatana weeye, annaka kaliya urur ahaan nooma soo hoyan. marka waxaan leenahay shukran lakum baan idin leeyahay. Soomaaliya oo dhanna hambalyo ayaan leenahay. meel kastoo la joogana maadaama ay tahay farax Soomaaliyeed in la muujiyo soo dhaweyn waa ku baaqaynaa biidnillaahi alkariim in arrinkaasi uu yahay arrin u kor u qaadayda dowladnimada Soomaaliya. maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay ku baaqday waddanka doorasho qof iyo cod inay ka qabanayso cabashooyinka meeshii loo soo gudbi lahaa iyo mabaadi'dii loo mari lahaana ay qoran tahay. dowladdana uga mahad celinaynaa. waxaana rajaynaynaa biidnillaahi alkariim meelmarinteeda iyo hagidda la hagahayo waddanka Soomaaliya waddo wanaagsan loo hagahayo in la iska kaashan doono cid walbaahiba meesha uga aadan ay ka qaban doonto. taasna waa rajaynaynaa biidnillaahi alkariim. waxaan idin leeyahay dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin. doorashadii isku sidkaneed ee Galmudug markay cuskatay wax alla wixii aragtiya ahaa ama daliil ahaa oo loo soo gudbiyey. waxaan leenahay marka bulshada Soomaaliyeed maadaama cabashadiinii la ajiibay waa inaad soo dhaweydaan ood ku soo dhaweydaan yacni ama ha noqdo bannaanbax ama hadal wanaagsan ha noqdo inaad ku soo dhaweydaan. ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya dhammaantood waxa weeye sidii ay idin kala qayb qaadan jireen ammaanka isugu jiraan ay isugu hayaan oo u ilaalinayaan oo horumarka waddanka aan uga wada shaqaynaynaa. ayakuna waxaan rajaynaynaa inay ilaaliyaan bulshada qaybaheeda kala gedisan ee muujinaya rabitaankooda doorasho qof iyo cod ah xor iyo xalaal ah ku saabsan oo ku salaysan mabaadi'da aasaasiga ah habraacyada doorashada saas u soo dhaweeyey ee habeen iyo maalinba u taagan 8 biloodna abaabulka ku jiray. runtii sacyigeennii ma la yacmin mana la yacmi doono. aadan idin bogaajinayaa. shukran lakum.